problemka ka taagan biyaha Soomaaliya. bulshadaasi dadka biyaha ku nool waxay u qaataan ama biyaha ay ka helaan 3-4 goobood. goobta koowaad dadka waxay ku dhaqmaan waro, goobta labaadna waxay ku dhaqmaan webiga Juba, goobta kalena waxay ku dhaqmaan ceel gacmeedyo, goobta afraadna waxay ku dhaqmaan washaqooyin la qato oo laasas oo boholaha dhaxdooda laga qoto. warihii biyaha xafidi lahaa markay burbureen oo bacaad ka buuxsamay wax dayactireen aysan jirin, biyihii loogu talagalay 3 bilood in lagu moodo waxay isku keeneen muddo bil ka yar inay ku dhamaadaan. laasas bay iskugu timid, webiga waxa ku dhacay wax loo yaqaan overuse oo 3 bilood oo jiilaalka qorraxeedka ah wuu dhamaanayaa biyaha webiga, kadib way fariisanayaan, waxay noqonayaan wasakh. waxyaabaha sababaya way koleera inuu dhaco, dhadhankoodan wuu isbedelaya, muuqaalkooda wuu isbedelaya. biyihii markay fariistaan xayawaanaadkii ay galaan wasaqdoodii baa la fariisanayso, isbedel baa ku dhacayo. waxa marka arrimahaas oo dhan sababayo dhibaatada dawlad kaalmayso oo wax ka qabata ma jiro. gobolkan Gado waxay cabaan biyaha waraha iyo biyaha webiga iyo biyaha ceelasha ceel gacmeeyada aan haambam lahayn, aan kaloriin lagu ridaynin ay iska cabaan. waxayna ka qaadaan majority dadka meeshan ku nool 3 cudur way: malaria, TB, typhoid. 3 cudur ayay qaadaan, waxaana sababayo biyo aan la kontroolin, nadaafadooda aan la hubinin. waxaa loo baahan yahay ceelasha afka kala haya qashinka ay ku daadanayaan in loo helo water bump iyo matooro halbustanla oo biyaha ka soo saara oo bulshada biyaha lagu siiyo. waxaa kaloo loo baahan yahay in la helo new distribution points biyaha laga siiyo meelaha webiga daqalada ah oo dadka biyaha ka cabi karin, si looga difaaco dhibaatooyinka webiga noolaha ku jira xaaska, jeerta iyo waxyaabaha deeliga u cunayo dhibaatada u geysanayo. webiga bartankiisaan taagannahay, biyihii beerihii way ka gureen. hadday gureen matoorka hadda gadaashaada ku aadan waxaa la soo jiiday, markay ugu yaraa 300 mitir biyihii lagu raadinayaa, biyihiina way sii cararayaan, webiga gowgiisa kale tagayaan. hadday tagaan biyihii naftoodii quality-gooda waa isbedelaya, dhanaan bay noqonayaan. qaabka wax soo saarka iyo abuurka seedska iyo mirihii beeraha ka soo baxay waxay noqonayaan kuwa dhinta ama hagaas noqdo oo aan waxba soo saarin. taasna waxaa sababay biyihii oo dhanaan. xilligaas haddii uu jiro matoor hore loogu diyaariyay waxa lagu beddelaa wax soo saarka iyo kheyraadka dhulka ka soo bixi lahaa. waxaa muhiim in ceelal la helo, waxaa muhiim waraha in la dayactiro. hadda kuwa cusub haddaan loo qodin oo kuwa burburay ee buuxsamay bacaadka buuxiyey haddii loo dayactiro waxay noqonayaan xilliga jiilaalka oo dadka intay soo barakacaan tuulooyinka fog oo dhan waxay ka soo guuraan markay waraha ka go'aan, beeraha ka abaarsadaan, webiga la soo dulfuulaa.